السلام عليكم وعدي سلامي كل جينا سلام انتين سندان ريال الله دسين دمتين كل جي سلام انتين diidnay ogow dalkayaga ninkii doonayo heesta ku wax kacaanka ka qaada jarniyo 1977kii is reminding is very nice and wadanimada Soomaaliya sheegaysa qiiradii ilaa heerkii deersasanta diidnay ogow dalkayaga ninkii doonayo liki inuu dulmiyo rabo annagu diidnay ogow ya هاستا كله جرت كوسا كرتون واري قادري ويلي راي ها ما هاتي وبونها وكونها وبرا برون يلي راي هرتنا ها ما هاتي أف ملة
ubaburunga ukungahang angubang liki ya aradi tan afmale ubaburunga ukungahang angubang ya kadidi ya walbu ubaburunya for a long time asilaha Ethiopian kan inka bahan dhulkani beerogaan hatta nin wariyaalka oo leheestayaalkan hayna oo mayle raay beesgaaltadan hayna aadgaaltadan hayna oo Soomaali weyn oo seedi dalkiika kaana report way habiyay ini koonfur galbeed Ethiopian haysada waayo airportka ilaa madaxtooyada every side ada fiirin Ethiopian degan من قاعدة تان أنا لي هذا الكي فيسبوك هسي صار في صدالانكو إثيوبيان إني هاي سده إربوت كسي للوريجي لول شيء لهاي سده not أنت أصلي لكن دتك نفترض يلو كان ده بلدك كجلان والشيء ده إثيوبيان أويل شيء from إربوت كا إلى أديس أبابا لغاية سببتيون لغاية that all والجرد إيوه ورئيسدي وانا برنامجka ka qaadade qeyb markan sababtii on lugaayaan we will tell you another time laakiin way balasin haaya inii koonfur galbeed oo aan hayna dhul reeben leeynomo laakiin dhul oo amaare ii okay and farmaajo han guuriyi ma una madaxweyne lahaani koonfur galbeed is for my people not Ethiopians it was my people's it's my country Ethiopian male taas in wax laga dhaha loo baahay ko dadka displays kala sameeyay beerahooda la abuuranayo in loo fasaxo beerahooda in wax laga dhaha la rabaa tag tan kale heesta aan qaadayo lahay afmale ubaburunga ukungahang angubango bay daba ma la hadli karo yaan la hadlina no worry no oday no nothing farmaajo xulay nin dastuur wato oo xisbi wato dastuurka ayaa soo gali kara xisbiyada doorashada koonfur galbeedna waxay leedahay maba laga soo gali karaba dastuur koonfur galbeed oo anaga kama tirsanin dowlad goboleedyada marka tan waxay cadeynaysaa clearly koonfur galbeedna Soomaaliya ka tirsaneen oonan voodi karin dastuur loo ogoleen Ethiopian uu leeyahay liska ogolaado ay clear u tahay cadeynaysaa si wacan u cadeynaysaa waayo haddii wadankiina la soo report gareeyay inuu Ethiopian haysto in badan anaga aan ka qaylinayna ilaa beerahay nalaga fariistay oo dadkii basbaas abuuranayaan madaxtooyadii joogaan airportkii joogaan anu madaxtooyada waxa islaabo ninka ilaalinaya wadanka waa la haystaa reportkii la soo tabiyay shalayto taasuu cadeeyay wadanka in la haysto madaxweyne lafta gareenna wuxuu yiri xisbi ka qayb gali karo koonfur galbeed ka socdo oo doorasho ka qayb gali karo ma jiro that means koonfur galbeed Soomaaliya kama tirsano waa Ethiopia ka tirsantahay in that case they cannot vote ma voodi karaan taasa yani lisweydiin mudan marka sababta ay taas ku dhacday Soomaaliyeena aan isla ogaana ma Ethiopia iskala koonfur galbeed ma Soomaaliya iskala ma dadka ku nool Soomaaliya ma soo Ethiopian caawa in wax laga dhahaa secondly midaan nin waxaana laga dilay professor la sumeeyay medical reasons haddii gadaal loo raaco dhimashadiisii iyo baaritaankiisa ayda ninkaas laba shay inbuu noqon karaa nidaamku u dhintay inuu liver cancer uu qabay iyo in poison la siiyey sun in la siiyey iyo inuu yani kansarka beerka uu qabay ma nin iska dadaalayuu ahaa the only illness isaga uu qabay waxay ahayd diabetic marka taas waxay ku cadeynaysaa ninka in poison la siiyey because isla maalinta uu dhimanayay wuxuu dareemayay in xoogaa yar maadaama qabowga roobka iyo baydhabo socdo hay fever uu dareemay
farmashi buu tagay oo raatib uu ka ahaa injection la soo siiyey cirbidaa lagu soo diray 4 hours ninkii uu socon waayo gurigiisuu tagay dhandadaa u imaadeen xataa waa la soo kiciyo la yidhi kaalay jiifka waa kaaga sii daraysaa qandhada iyo Soomaaliba iska taqaanaa lagula hasaawo wuu soo kacay 2 jeer uu ma tagay wuuna socday muxuu ma tagay blood dhiig qofka bini aadanka dhiig wuxuu ma tagi karaa dadaa waxay dhaheen maskaxda dhiigga uga fura maskaxda dhiigga ku fura blockage uu sameeyaa dhiiggii galay ma soo bixi karo inuu ku darsamo ma ahane xididada way isdhaafaan blockage uu sameeyaa laakiin dhiig maskaxda ku fura sanka lagama keeno laakiin waxa sanka laga keeno waa kan beerka soo diiday oo xoogga ku soo baxay marka beerka qofka hadduu liver cancer uu qabo yes dhiigga wuu ma tagaayaa laakiin nin shalay fiicnaa shaqaysanaya xoogaa yar dhaxanta iyo qabow dareemay hay fiber anaga dhanbaani hadda meeqa beriya niiga xanuunsanaayo lahaa dhuunta ay xanuunays dhigay cunaysankii cuno habeen dhana saan ku jiray aanan ogeyn wallaahi programka maalintii tama markaan fiiriya habeenkii dhan halkan aan ku maqnaa meesha dhan ay xafafaysa arkay waa hay fever qandha ku qabanayso that doesn't mean in adiga yacni aad tahay qof oo maaragtay xanuunsan oo injection u baahan laakiin Soomaaliya waa aragtaa markii qofka yara qandhada waxa la leeyahay malaria tifoogi balaayo dhanba aan la garanaynin Yurubtan iyo meelaha la garanaynin meeshay taala halka daawon baana dadkoo dhan lagu wada dulaa anyway ninkan waxa la soo siiyay waxa la yiri fever iska dareema waa nin professora waa nin wax bartay xanuunkiisu uu gartay wuxuu yiri xogaa qandha haysa because jawiga roobka iyo wax isbedelay cirbid waxa la siiyay oo kaalmaata cirbidi kaalmaata markii la tuuray 4 hours later ninkii uu dhaqaaqi waaye at the same time ragba u yimid shaahi cadays wax baa la siiyay markii la siinayay uu soo daaday sanku ka keenay ninka marka waa nin u soo halgamay koonfur galbeed waa nin ku dagaalamay waxbarashada hidii dhaqanka Soomaaliyeed hidaha inaan la dhuminin nin ku dagaalamay dhalinyarada baraayay jaamacadii ugu horeysay sida dagaalada ay u dhaceen Baydhabo ka abaabulay oo ka furay jaamacad oo la dhaho University Baydhabo la dhaho bay ninkaas dad badan buu yacni axsaan u sameeyay dhalinyaradan meelaha aadaysa xataa dadkan lacagta afford gareyn karin wuxuu balan u qaaday in jaamacadii ay helayaan haday reasonable inay waxbarasho u soo jeedaan arday dhalinyarada intay meelaha gali lahaayeen ninka wuxuu ka tagay 9 caruur gabar aad qaali ugu ayaa waxa iga soo codsatay caawa inaan ka sheego meeshaan Maxamed Cali Kalaa Ilaahay oo naxariiso familkiisana ka siiyo samiri iimaan anagoo dhan naga wada siiyo laakiin in familkiisi maadaama isaga aanan hilmaamin caruurtii reer koonfur galbeed say u dhanyihiin aanan la hilmaamin ilmihiisa oo intana baroorduuq loogu sameynaayo familkina wax loo qaadanayo dad badan oo UK ku nool ah fiirsanaya programkan baroordiiqdi baa la rabaa in leedin kaga ka qayb qaadataan this weekend next weekend marka waxaan idinka rajaynayaa inaad ka soo qayb gashaan reer koonfur galbeed kalaay ilmaheena ma hilmaamin yaan la hilmaamin ilmihiisa good tan labaad oo raba inaan dhaho waxa waaye caawa oo midnight caawadan hadda aan ku jirno 12 habeenimo marka la gaaro reer Soomaaliya way soo dhowday 12 kooda anaga 12 kan xoogaa baa harsan waa habeenkii independentaha oo koonfur galbeed federalism ay dalbatay oo inay xuriye qaadatay ay damacday oo calankeeda markada ay sameysatay 1940 something tonight is the night 16 November 1942 you 48 k ahead none of it anyway tonight is the celebration that's all I care habeenkii Cusmaan maxalli jiray engineer Cusmaan design gareeya calankii koonfur galbeed caawa midnaaday ku aadan tahay qof walba regionkaas ka soo jeedo waliba markaas waxay ahayd 9 bay ahayd from Hiiraan to waxay ahayd by even reer Hiiraan celebration kana nala galaan baa ku wacan habeenkaasi habeenka la xariijiyay ahayd Hiiraan caawa 6 saac in ku aadan tahay aad baad u mahadsantiin taas tan kale oo caawa idin la soo socodsiinayo waxay tahay magaalada Baydhabo inaan la hadli karin inaan wariye hadli karin
inaan shacab hadli karin odayaal hadli karin qofna halna hadli karin cidna aan hadli karin dastuurkii in la abaabulo yacni la qodobadiisii la raaco la isku dayo xisbi inay samaystaan la isku dayo koonfur galbeed xisbigii hadda taagnaayo abni cadaalo leeyiri kama qayb gari kartid any other xisbiga koonfur galbeed leedahayna ma join garayn karo electionka waxa waaye farmaajo saan lagu siinaa aysan baa lagu siiyay xataa dadka siinaya anaga inaan meesha farta saarno soo maahay inaan ka hadalno waxyar signature car I voted la dhahayaa jiro haddaadan xataa saxiixi karin suulka la saari jiray I remember boxkii yaraayo dhalada ahaa waxa lagu ridaay waa naloo diidanay taas marka caawa markaa calculationkaygaan isku celceliyo waxay ii caddaysay dad badanna aan wareystay koonfur galbeed inay soomaaliya ka tirsanayno Ethiopia ay tahay newska shalay soo baxay kan maanta soo baxay isma waafaqaan kan shalay soo baxo lahaa Ethiopia baa halka haysto kan maanta la leeyahay vote ma qaadi kartiin xisbi ma samaysan kartiin ma hadli kartiin no marching no waa rabaa xataa ma dhihi kartid in that case meesha waxaa kaaga cad koonfur galbeed inaan soomaaliya ka tirsanin oo ka tirsanta Ethiopia otherwise vote-ka Soomaaliya madaxweyne Soomaaliya lagu dooranayo waa loo ogolaan lahaa marka qasaan President Farmaajo I feel sorry for you because you lose our vote we would give you 40% you know afartan baan ku siin lahay ila Soomaaliya afartan baa waa raxweyn halkan baan emailada ka soo fayd gareyn lahay badnaan waa naloo diiday anaga I think that is one of your dialogue say u soconaysa doorashada I have got no idea maalin ka dambaysa Soomaaliya waxay noqonaysaa hiil nala soo ifaaya hoos why maxaa la isla afgaran la'yahay dowlad goboleedyadan sagaalka madaxweyne loo sameeyay Soomaaliya dhaway ku jiftaa taas inaan noo dhadhamaynin laakiin sida lagu gaari lahaa dalaada jaranjaradii yareed sida inta ilaa laga gaarayo qashqashaad maxay tahay maxaana loo qashqashayaa maanaga dhibaatadan ku jireenaa 30 sano hadda socona ilmihii dhashay maalintii siyaad bara wuxuu tagay December dagaalku wuxuu dhacay December 1990 buu dhacay ilmihii habeenkaa uu dhashay December this year 31 u buuxsantay diinta gaalatii muslimkana waxay noqonaysaa 33 sano the more than this is not fair inaan dagaal ku dhex jirno qashqashaadan iyo labalabadan iyo isu beenguurkan iyo anaa taliyo iyo anaa yeelo maxaa keenay ma la iska yiraahdo haye intaas askar hala sameeyo for temporary time ilaan madaxweyne temporary baa waa nala soo siiyey waan soo dhamaysanay mid kaloo afara nala siiyey fuul oo bilow ah waa nala soo siiyey xumaani samaanba data is gone kiisa labaad baa noo soo galay we were so happy oo maanta adduunyada recognition baa weyn baa dhacayaan lahayn yes adduunkii wuu noo ogolaaday laakiin annagiya iscubrintii shalay aan kasoo tagnay dib u soo noqotay taasna is not fair wax yar bay ahayd wax yar ya iska hagaajisa next vote Somalia United level la dhii lahaaba next vote Somalia United kan iska baashaalo laakiin 200,000 oo askari baa lagaaga rabaa adu waxaa tahay 3 million people hadna sidaa Soomaaliyeed dhinaca ka qaad Puntland dhinaca ka qaad waxaan u maleynayaa NFD inayna soo raaci lahaayeen ogaadeen this time even Djibouti it would come because situation ka Djibouti xataa ma fiicna and waxaan idin leeyahay oo si fiican hambalyo waa hadalkii aan waday yacni wadayga lumiseen waxaa si fiican hambalyo waa oo very proud lagu noqdaa Soomaaliya markii la siinayay independent-aha waxa dhulkeeda loo qaybsaday waxa loo maleynayay inaysan isu talin karin even though taas kastoo yar ay runtahay laakiin dad nolosha ka dhinto shaqaysanayna inay yihiin ayaa loo maleynayay waa international community oo dad
dadka cadaanka oo ismooda maaragtay laakiin taas we proved wrong horta markaan Europe nimaanay waxaan aragnay in naloo keeno dadkan Afrika bay ka yimideen nala baaro nadaafadeena iyo wixii guri walba Soomaali la yimaadaba uunsi baa bafle ilmihii markay iskoolada aadayaan caagag baa jirto hal litira oo caanada nooga dhamaad kaasan u qaadnaa soo faaruqan lana hooyo musqusha markaa gelayso ku mayro kuwa kale ilaan waxaaraan la soconayaan leh cuntadii aan loo ku nutrition ka noo imaaday chicken tila dhahay marawas waa la bisnayna marka la dhodhacaanka dhana laga dhameeyna waa la fiiri waxa la this people waxba uma baahna kaalma very clean iskoolaadkii communitooyinkii diyeshan ba dhabna lagu soo siiyey health wise hygiene marka la yiri nadaafad caafimaad kalsooni waa taqaaneen hooyooyinka markaan yani qofkii iskool aadi jiray Soomaaliya uu yaqaan subaxii markaa soo kacday saliida halkaan madaxa garajabay aan dhigi jirnaa anaga korkood ya adoo borbor laguma diraayo maasha Allah intana saas camal nuf cunugio wada shining buu tagayaa iskuulka madaxi loo shaleeyo saliid maxaa ugu shubtay ilmaha madax ma la karo iyaga saliid ma marsadaan madaxooda waxaa ka daadanayo dry skinka markaan tagnana hooyooyinka waa markaas iska baranayaan maxaa leenahay hair good head yeah this white thing no come this good Ingiriis waa qanacay Soomaali faraha laga qaado dadka badan oo ilmaha laga aruursanayo xataa kuma jirno inkastoo anaga ilmaheena garaacno wadankan ilmo ma la garaacay Allah wala garaaca si fiican loo qaniina laakiin ma sheegi kara marka saas daraadeeda soo waxa la arkay hadda inay Soomaaliya ku fiican tahay businesska Soomaaliya inay shaqada ku fiican tahay waxa la ogaaday Soomaaliya inay money maker ay tahay lacagta dadka sameeyay ay tahay ila meel walba Kenya tagnaanago qaxootay deg anaga saar waxa la gadayaa 200 ku soo gado inta filan laga dhisay kaal arag ani waa kas magaalo dhanba filooyin ba maxirnay masalan tagnay waa dhisnay duwayaan tagnay waa dhisnay marka waxa la dhahay Soomaaliya hadii dhulkeeda loo hagaajiyo Dubai balooma baahna that is very good thing come out from international community ay yiraahdaan these people they are good on business marka waa badeerna way qabaan oo maraakiibta aan is cariirinaynin ya marka hawa macaan way qabtaan xagan hala aado no other reason dadka kale is jiiraayaan laakiin annaga waxa naga maqan the vision aragtida dheer oo dadka kala arkaayo sabab maxaa naga reebay waba afka misqabanayna adoo ma hadal kartid adoo diyaaradda saaran raadaalka zam kan kala ayaa dhoof ku yiri marka hore anna Somalidan typical like I need to go to concert and my father is refusing kind of that's why dhibaato ano maaragtay jubaa shilolo theaterka muqdisho ka socdo aabana ilaa aabaha adad caawa baxdo that's not on how come nation dan 40% Soomaaliya loo dhigi karaa xisbi ma lahaan kartiin see loo dhahaa ma hadi kartiin even though iyaga hadda mucaaradnimo iyo ka hadalkeedaba maaha halkan babii naga soo galay daraato ma aragteen in sawiradii oo hiiraan mar walba meel walba laga hadlaayay koonfur galbeed biyaha waa kaga horeysay waana kaga dambeysay ilaa shalay roobka da'ay sawirada xataa waa la soo qaadi laayay waxay noqotay dhalinyaro inay halkan lacag ka siino iraano adoo wadada maray soo dub dhibaataan qabsatay markii xoogaa ay laga geenayo shanto kaam la soo duubay oo xatooyaha la arkayna waa la fasaxay laakiin the rest of the cams waa la diiday because 470 in la ogaado lama rabo 470 cam in la wada ogaado lama rabo taada kale waxaa jirto in on la rabin in biyo intii soo galay iyo
ilmihii baa iga dhintay iyo maaragtay ani de booliiskii baa hadda dacwo u haystaa iyo waxyaalahaas maba la sheegi karo. No, nothing. vote iyo waxaasna tabu allah tabu lagama hadli karo. Okay, ani suggestionkayga caawa waxaa waa Ethiopianka naga baxo. wuxuu noo hayaa malaha hadduu farmaajo caawinaa xamar ha yimaado mise garbahaarey ha tago, laakiin annaga dadkeena aan banaanka fadhiyo weli deeq aan loo geynin. Soomaali weyna ka aamustay, annagana inta yaroo karnay inta kale naftirkooda reer koonfur galbeed iyaga xataa xila saaran ay ka seexdeen, taas waa ku ceebeynayaa inta badan ay ka seexdeen. waxa waaye dadkaas guryahooda hadday joogi lahaayeen dhibaatadan kuma dhacdeen. biyahaba ha iskaga dhex jiraan, laakiin qofka gurigiisa markuu joogo waxaa la yidhahdaa nin tuur leh siduu u seexday isaga yaqaan. qofka gurigiisa markuu joogo wuu yaqaanaa nidaamku u dhaqmi lahaa, laakiin qof displace oo bannaan fadhiyo magaaladan isaga yacni garanayna yimid biyihii dhulka meesha sheebtay meel kale aan kala garanayn oo boolaha inta la dejiyay biyihii dhulka la go-aayo la ordaayo dhibaata ugu sugan. basbaaskan la abuuraayaan annaga sideenaba midmita beer xanuun buu nagu ridaa dadka iyaga ma cunaa. marka basbaas ma rabno, misigada nooga roon. misigada hataa haddii na ladhaho misigaha abuurina galey abuura oo galeyda waa gaagaabanta waa iska abuuri lahayn. misigadan dhadheer dhirirka lagu nacaa la yiri, haddii na ladhaho galey abuurta xataa waxbay ahaan lahayd. laakiin galey ma abuuri kartid, misiga ma abuuri kartid, beertaada basbaasaa lagu abuurayaa. adiga gurigaaga ma deganaanaysid, waxaa aadaysaa banaanada iyo degmo kale oo aadan garanaynin. bohoshaana maxaa dhahay arrimaha gudaha dowladda hoose kuusoo saxiixaysaa inaad degtid bohosha markay ku dishana 2 ilmaa naga dishay United Nationkana soo gaara. this is not on. sideedaba dhibaataan ku qabnaa. halkii magaalo oo 4 boholood laheedna dadkii crowded bay noqotay. dadkaas magaalada tuugsi uma aadi karaan, waa ka mamnuuc. magaaladay wasaqaynayaan, waa dhibanahay ma dhihi karaan, waa mamnuuc. camera loma ogolo. wariye intuu baxo dadkaan yacni waa dhiban yihiin ma soo dhihi karo mamnuuc. baaladii baa xalay halkan ka go'day, korontadii baa soo dhacday, 2 qof ay dishay, mamnuuc. ani ma garanayo nidaamka mucaaradka iyo muxaafadka ay waxaan u maleynaya inay hal meel wax isula wadaan oo wadan inay dhisaan rabaan, inay wax isla hagaajiyaan ay rabaan. ma garanayo marka haddii oo la yiri ninkii korontadani safe ma aha. ninbaa hadda ayaan dhexdaas soo aragtay Facebook baa la soo saaray magaalada Baydhabo ee taas. shame on you Beko. magaalada Baydhabo dhexdeeda biyo meel fadhiyo baalo dhex taalo xari ka soo go'ay baa nin inta jaranjaro metal bira loo geliyay la saaray buu yacni korontadii sameynayay. bal imagine jaranjaradii waa metal, waa bir biyo la dhex geliyay, korontana ku xiran, qof bini aadan saar. cajiib. هاي لانكي ولا إروا ما جرى ما مالي في صدا هاي no request أنا لما ذم برد بكم باي هاي صدا no request. هاي do some request please. هدا يقفوا بين أرجاي ما جرى وحبا ما يقول معانا. هاي سكي واقول معي أنا واكيد نعيبها كالصعدة محاجر فلاش كان واكل. هاي أوكي عبدي أحمد أسوق عبد أحمد ريكوست ده بالكاميرا. أنا دي بقى طلعنا هي ستي لا شرط. دينا يأجو ترك يغاني كيتونا ينو يدوم أنا قدينا يأجو. Ethiopianka maanta waxaa hadlay nin la yiraahday Ismaaciil Samatar oo maaragtay reer professor ah oo Washington DC oo somewhere in America ka soo hadlo. always he's a perfect Somalian. wuxuu yiri videogiis it shocked me. wuxuu yiri dowladdaani waa in loo wada istaagaa in a right way lagu support gareeyo si dalka iyaga aanan u lumin. demonstration hala sameeyo, يعني مظاهرات hala sameeyo
peaceful ah sababtoo ah dowlad goboleedsiga nidaamkana loo ka kala gooyey waa sheeko hadda korna aan idiin sheegay nidaamkii farisiyiinta loo dhameeyey insaan iyaga loo ka kala jaray markaasna midba midka kale usoo ijaartay kan kaleeto ilaa kii ugu dambeeyay yimid oo la dilay marka dhulkeena dad baa qaadanaya sidaada koonfur galbeed loo haysto walaalayaalo wax soo dalbadahe haddii kale aan iska dambeeyey maxamed sidii le waayo request ma soo sameyne maxay tahay anu sanadkan waxaa i helay mantiriri waayin xoogaa yar sugiyaa settingkana eegayaa mana dadaali waaye afrikoydaya diidnayogo dalkayaga ninkii doono inuu dulmiyaa rabo inagu diidnayogo ninka dilay walaalkeed anaga waa noo daleeya dagaal baa inaga dhexeeye afrikoydaya diidnayogo dalkayaga waa nimayo waxbaa si iga ah ma garanayo sababtuusan actiif u noqonaynin requestiiba ma soo baxaayaba haye qof alaal qofkii hadlaya messengerka iska soo galaba walaalayaalo caawo sasay un baan yeeli doonaa insha allah ma garanayo sababtuusan actiif u ahayn anybody maxamed waxaa soo gashaa messengerka walaalo request ma soo baxaayo qof kaloo yurub joogay soo taraagareeyaba cabdulaahi ganey ka salaame haye sawirkii sida waa naqaanaa saas ma naqaanaa intii saaran see camal waa nuur maxamed sahal adina saasaa taqaanaa miya dado waxaa idin leeyahay meeshaanay I've got no idea the reason ana u qaban karin waxbaa iga hadlaysan ee raalli iga ahaada just iska sheergareeya programka maxaa la dhahayeyse hadaan kusoo noqon karaa I will try laakiin camerada ay furmilaadahay something is not right requestiiba ma soo baxaayo okay halkan baan malaynaya in laga haysta abib off okay diidnay dalkayaga ninkii doonay inuu dulmiyaa rabo inagu diidnayago mandiriri waaye mana dadaali waaye walaalayaal soo taraagareeyaba hal mar waxaan leeyahay dowladna waa la dhisi jiray nidaamkan camal weligeyga ma arkin waxaa fiicnaan lahayd dadka in loo ogolaado freedomka joyceka ay sameysanayaan maybe in that way even though way dhacdaa baartiya aan la rabin oo la doorto meel walba Europe iyo meel walbaba haddana at the same time
يعني والله أقولادا وحال لغو أقولادا نظام كشقينايا لكن هدي كان حبسي قلي كاس ما هدلي كرتيد كان آتري هذا ميديا ده ul haysta aan noqotid is no point there is no point dadka hore un bay usii xanaaqayaan hore un bay usii kacayaan aadna dan kuuguma jirto nidaamkii fiicnaayo intaan lasoo wadayna waxay noqonaysaa in dib uu dhaco la bedelo which is not fair wax 30 sano laga soo shaqeynayo marka I wish in oo dadka ay gartaan ay ka dhigaan dadka dalka waa xukumeynaa le inay gartaan oo maaragtay ay fahmaan the basic needs oo human being u baahan yahay inay tahay xuriyad iyo job providing tan kale waxaan ka hadlayaa maanta dadka agaasimayaasha ah wasiirada ah in oo la leeyahay 4.5 loo qaybsaday wixii jagooyinka qaarkood haddii oo ku jira qof reer koonfur galbeeda la leeyahay nalooga kiciyo wasiirayaasha kasoo jeedaan reer koonfur galbeedna albaabkooda anybody u furan yahay and that is disgrace ay tahay mid laguguma cunsireyn karo wixii waxaa la yidhi 4.5 wada qaybsi baa la yidhi dadkaaga inaa employ garaysa haddii madaxweynaha dadkiisa employ garaysanaayo wasiirka ra-iisul wasaaraha dadkiisa employ garaysanaayo ra-iisul baarlamaanka yaa u diid oo wasiirka yaa u diid wasiirada kaleba saas waaye ma kan halkan ka yimid what's wrong with you man maxay tahay dadkan saa noocan shaqooyin badan baa dadka laga soo saaray damaanad ma laha excuse kan damaanada loo waayay iska dhaafe kii kaloo damaanad lahaa ee meesha ku jira la leeyahay ninkaan nooga kiciba ani adaaba isku qolo ahene hadda adiga ninkaan siisid oo raxweyn aan intee shaqo ka hela ninkii raxweyn soo fadhiyon baa xataa soo hadduu xataa leaderka oo armiga wado uu yahay generaalkii kabtankii warqadiis resignation by email saasi waa disgusting humanity maaha human right maaha bini aadanka xaquuqdiisi maaha wax walba xaquuqda la isku dhaafay waxaa loo baahan yahay in cadaalad lamaba helaya Soomaali dhexdeeda laakiin wax u egoo xoogaa u soo dhodhow oo dadkana ay ku qancaan in la keeno haddaan taas la helaynin I don't know waxa la sheegay iyo nidaamka in loo shaqeeyo la rabay waxa la dhisay haddii dooradii diiday in qoorta laga qabto biyo ay cabto ma qof human being ma ku samayn kartaa saas waa no marka something ain't no right in that case waxa fiican ummadda way soo tacabtay way soo tacabaantay mudday soo jiitantay intaana hadda yacni luuditaan intaana ku filan in la yiraahdo ku fiicnaan lahayd 4 sano temporary ha 4 tijaabaha 4teedan waxa waay wax saxid askariin dhista wasaaradiin dhista iskoolaadkiin dhista budgetka jaamacadaha hala dhiso ardayda dhalinyarada tahriibka aadaysa hala habeeyo kuwa galaya dadkii kaleeto hala soo celiyo nidaam noocaana askarta hala badiyo mashaharada hala ummadda kalsooni hala siiyo do you see what I mean correction ka meeshuu ka bilaabanayo marka 4 dambe waxaa la dhihi lahaa oo Somali United one time ummadana waa isu soo yacni waa isu imaan lahayd laakiin maanta waxa dhacay waxa waaye nin kastoo hadla haddii la xiro shalay waxaa helay warqad ay leedahay anybody mudaaharaadka ka qayb galo waxaa laga rabaa in oo by hook or crook in la joojiyo mudaaharaadkaas dad la leeyahay oo kooxda wadaniyiinta xoogga wadaniyiinta la leeyahay ayaa waxaa la yidhi meesha waxay ku qoran tahay whatever cost markii la yidhaahdo waxa waaye waxaa ku jirto human life in la qaado in qof bini aadan la dilo aa ku jirto the meaning sida loo qoray warqadda af Soomaali bay ku qorneed
laakiin wax kastoo suurtagal ah aad ku reebtid haddii la yidhaahdo in qof la dilaanaba suurtagal ay noqonaysaa. marka maxaa faa-iido kasoo kordhaya? annaga dowladaan dhisaynay ma dadaan lahayn yacni kalsooniha la siiyo in dad la dilo isno it doesn't make any sense. maxamed mahabaaha yaqay أنا ولا أقل دعاء ولا دراسة settingkay إذا هلابي هذيك أورساتر وبلا دهيل كمان بس دعني أنا جيمونا غداس رساتر disgusting والله. أنا بس بواي مركان يوتيوب كان نسوي درا يوتيوب كبيجلا صهاد له والله وابكو هوابي بوحان ما علم فايروس على صوتورة. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ولا شيء. ما يفكر تنسى ما يقافرن. ايه ما كاحرة. هاي فوي بعد ان شاء الله. اوكي. It's okay مركز. دانا. إساق قبر بقر صوت البابا ما بكون جرتيد بما صوت البنين أو تذكر عادي يعني حرس إنه يا ما بكون سوق بنا رار بقرة وجناح أنت هاي وأكتر جناح كورن إكسبرينيشن كسوا كوش جاي هذا قبل الله ما داس دباليو يا gabar baad daansanaysaa facebooka kusoo cacaynaysaa haddana doqonnimada iga qabo aada soo leedahay maxay tahay waxaas maba xishoonaysid inta yaroonana ka adagnahay inaan ku dhahno gedlos leba waaye intaasaaba ka adagnahe ninba tabartiisaa la yidhi qodaxay ku tagtaa soo maha xoogaygaba hadduu intaas gaaro soo maha reer boqorow reer boqor reer macalin boqol obooshe af soomaaligana hada galdani walaa allow engine outside of your Facebook tough disable. Okay, laba qof aa ku jirtay request soo dhaaba markaan hadda waxba madamiye. Ana qof la bloggeray ma link la samaysto waa yaabanahay. محمد لي دحفدي الله ويو أنا كوح عرقنا والله بالله. Control friends public yes okay. See more. Specify public is off يوتا ماشي public محو off ويه Facebook public دم off ويه how is that possible بارلين request هذا أنا والباقيين بهواي سنيا يا boy only show to same friends. Why do I need only same friends? Say publicly. Why publicly is off? Oh.
okay baalkan waa daminaya waa kusoo noqonaa mobilkan kasoo galaya laakiin saan arkaayo Facebook oo dhanba xiranba waxaan leeyahay waxaan idiin sheegayaa koonfur galbeed in dadkeeda la dhihay xisbi ma samaysan kartaan mana foodi kartaan wadankana ribood laga soo bixinaya amxaarada ay haysato marka labada hadal way iswaafaqaan waxay sheegaysaa inaan koonfur galbeed dadkeedii iyo wadankeediiba Soomaali aan ahayn Ethiopia ka tirsan tahay in that case hadda Ethiopia ka tirsan yihiin vote ma gali karaan taasaan ugu wacan dadkii ku dhex jireenna waxay isu maleeyeen inay Soomaali yihiin anaga vote-kan rabnaa xisbigaan rabnaa bay yiraahdeen maba hadli kartiin xisbina ma samaysan kartaan Allah and that's waa waxa aan fahmino ugu cusub tan labaad waxa waaye Ethiopiaanka meesha joogo inuu wadanka haysto airportkana la wareegay dhulkana isaga haysto u egtaa sababta vote-ka loo diidayna ay taas ka mid tahay waxaa jiro kaloo lasoo sheegay waxaan rabaa maxamed kalaay in oo loo aruuriyo lacag reerkiisii maadaama nin haliyey ahaa professor soo koonfur galbeed u dagaalamay ahaa wasiirka tacliinta iyo waxbarashada ahaa oo hidaha iyo isku mashquulinayay in qof walba uu jaanis uu siiyo uu ku dadaalayay xataa dad badan agtiisa lalahaa in ay yacni ku dhigtaan free haddaysan awoodin jaamacadaha wasiirka oo waxbarashada waxaan ka codsanaynaa in jaamacadaasi positionkii maxamed calkalaay mishaharkiisii aan laga joojinin 9 caruur waa ninka isaga caruurta koonfur galbeed muusan hilmaamin waa ninkii ugu horeeyay jaamacadda ku sameeyo waa ninkii ugu horeeyay possible kaaga dhiga koonfur galbeed maanta in laga helo wasiir waxbarashadeed usoo shaqeeyay waaye ninkaas ilmihiisii yaan laga goosanin biilka reer koonfur galbeed oo dibad soo kusoo maqana waxaa la rabaa islaanta inay intay asayga saaran tahay in yacni la kaalmeeyo taas ay yacni ay ka shiri doonaan caawa 12 waa sanad guuradii aas-aaskii federaalismkii koonfur galbeed markay bilaabatay oy ahayd 9 gobol from Hiiraan to the end of south habeenkii 1940 oo la saxiixay caaway ku aadan tahay 12 ilaa 16 June marka reer koonfur habeenkii calankaas la sameeyay oo ninkii la yiri engineer Sheekh Usmaan sameeyay caaway ku aadan tahay marka reer koonfur galbeed meel walba waa joogtaan haddaadan yacni jaaniska aadan helaynin inaad isu tagtaan celebrationka waa habeenkii calanka adliista calanka u hayso oo koonfur galbeed waagaas waxay ahayd koonfur galbeed 9 state from Hiiraan to South ay ahayd maanta ma aha nidaamka maanta 2 magaalo laga soo reebay ma aha waxaa kaloo jirto aan ka hadlayna caawa in oo wadanka iyaga shaqadii shaqaalaha wasaaradihii oo shaqada iyo shaqaalaha wasiir kasta oo koonfur galbeed u dhashay inuu shaqaalaysiinayay dad adas dan koonfur galbeed ah reer koonfur galbeedna meelihii kale ay ku jiraan la yiri dadkan raxweynta nalaga saaro wasiiray leeyahay wasiiradooda ha shaqaalaysiistaan kaas xildhibaanka iyagaaba soo sheegay Cabdi Taqtar marka Cabdi Taqtar you are very good something like this it will build your credibility waxay dhisaysaa moraalka iyo in lagu aamino shaqo wacan baan ku leeyahay wuxuu soo cadeeyay Cabdi Taqtar in wasaaradii dadkii waliba dad magacyadooda uu tiriyay teeda kale rag uu tirinayay mid kamid ah waa nin wax bartay especially ninka oo rabay inuu noqdo minister of health noqday wiilka loo dhiibay minister of health primary ma soo dhigan that is not possible dad badan oo dad sare ah kula dagaalay Cabdicasiis lafta gareen dhalinyarada wasiirada especially wasiirka kaas wasiirka oo interiorka ku xuduudaysiga iyo gobolada iyo maaragtay loo dirayay dad yar ay ahaayeen bad mid iskool uu soo dhigtay kan kala caafimaadka dhande minister of health alif wax maale baahos ka maba soo dhiganin in that case ragii wax yaqaaneenna
inta shaqo kale la siiyey ashaqadii kalena looga soo saaray adiga raxweyn waaye ninkan wasiirkiisi waxa siiyo markaan waxaan dhihi lahaa markaan lahaa reer koonfur galbeed shaqada reer koonfur galbeed iskale taasaa ka mid ah maanta banaankay iskaalay soo daadanayso waa soo buxuysaa muneero kaliima iska qaylinayso dad badanaa soo hadlooy marka shaqooyinkii dadkii aan lahaa daraa damaanad la-aantaa loo soo finishay 300 dadkii 270 markii la yidhaahdo 90% haddii kasoo qaad xataa 180 300 oo la tilmaamay oo reer koonfur galbeed ahaa stiil lama damiinani 500 oo magaalada muqdisho oo xabsiga ku jirtay stiil lama soo dalmiinani afartii wiiloo shareer la dilaayo la xiraayena hadda hadalkooda kuma soo celin kareed wilbiyaanada tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa Ethiopiaanki inay askartooda xataa baabuurana qaadan in lugeynayaan from Baydhabo to Addis Ababa dadkii joogay Baydhabo iyo agagaaraheedna la yiri ma voodaysaa marka farmaajan afkiis wuxuu yaqaanaa kaliya Bakool I think Bakool le inay koonfur galbeed tahay bay shabeel iyaga la isku qorooy maahane bayna amxaara iskala shabeel ma garanayo Eritrea la sii iidan kulay bas oo malayna miya yaa la sii tolo dadkii waxa la yiri xisbiya wax lagu dooranayo xisbi soo sameystay madaxweyne afkiisa ahayd xisbigii reer koonfur galbeed waxa la dhahay koonfur galbeed xisbi ay leedahay maba jiro ma bala sameyn karo iyadoo ay taas jirto cabdicasiis lafta gareen xisbiga uu maanta mamnuucay xalay waa looga fadhiyay international community waa loo haystay taas qofaan xisbina yani kama hadli kartid bah vote ma geli kartid magaaladii reportyadii waxay isaga soo daba dhacayaan maadaama wariyaasha oo koonfur wariyaasha kaleeto intay tageen koonfur galbeed bay soo wariyeen ayna soo tuureen waxayna dhaheen waxaa yacni koonfur galbeed haysto Ethiopian horta airportka waa lala wareegay that was horraca airport iyada ka mid ah Soomaaliya oo Ethiopian la wareegtay shalay maanta ma wareegin anaga waa qaylineen intaan dhanina dhageysanayo male alxamdulillah wiilkaaga ilaahay noo soo diray ma sha Allah Soomaalida markay sidaa isaga naxayso oo kan waa la haystaa kaas waa la dilay ay dhahayaan it would be something nice anagoo dhan ma wada baabi'ino buhulku maan wada dhicin Soomaalinimadu wax weyn bay noqon lahayd dialogue ku hadashay doesn't make difference appearance marka aragtay inuu Soomaali qofkan yahay in oo salaam calaykum isla dhaafa ma in assalaamu calaykum ay tiraahdo markii aan ku baahdana aniga yani aan ku helo marka adi ay baahatidna aan adi i waaysidna waji fiican ma Soomaalinimada ma Soomaalida wax lagu yaqaan dabeecada aad u qurux badan lagu yaqaan Soomaalida not none of those Soomaalida dabeecadeedu waxay ahaayeen ninkaaga soo dhaway walaalkaaga u baahan ha dhargin something like that hello salaam calaykum hello في عمامه ماما برنامجنا خرجت مسكدة وهذا بوا كجرا ماما سوق الله أي ماما dhaqan fiican oo beautiful ah oo ilmaha yar xaafadoo dhan u wada waalid aan kusoo kornay dhaqan lays ogyahay ninka deriskaaga inuu dhargay inuu baahan yahay sida diinta sheegtay aan kusoo kornay reerkan hadday soo kacaan maanta aan canjeero haysanay kan dabkiisii baxayo cuntada kasoo carfaysun baa loo diri jiray ilmaha iyagaa isii vitaareey jiray cali wax ma soo cuni hooyo inuu weylo cuno haa soo fariiso aawe axmedka kii kula dhashay naaw usoo yeerkeen ala dhihi jiray ilmaha markii 2 maalmood 3 maalmood saas lagu arkana waalidka loo tagi jiro oo dhihi jiray xaalad saxmiya haddaysan ahayn intaan waa kaas badarkan hoo kistaan beesadaan hoo sokortaan 10 kiilo qaado waa la iskabi jiray dad was Soomaalidan oo hadda wareersatay oo dhuunka kasoo haray oo iyaga dhan isla buuqsano
wada qabiilka miirana qabiilku iska jira yaa tahay abga yaa tahay raxween yaa tahay ha aalta weliba waa laisku caan jiray aalta jabaaniga arag haye xaayo iyo aamus qaldaanka xabadi keenta ma aragti gabaytale waa hadasha maanta waryaa adaa iga daran aa dhihi jiray it was fun cara ma ahayn gudaha ma jirin fanay ahayd waa la qosli jiray qofka kale isagoo faraxsan oo weliba naaneestaas waxaas naanees ahaan u qaadanayo ma aragtay isna mid kale kuusoo qaadana kugu garaacayo it was very good laakiin nidaamka hadda soomaaliya socday is not so good soomaaliya soomaali fiican maaha soomaali fiican maaha soomaali diinta ogolaatay maaha dhaqan diinta ogolaatay maaha dhaqan oo maaragtay aan claim garayn karna oo sheegan karna maaha ilaan annaga dad muslin aan nahay muslin haddaan nahay kitaabkaasun baan dhihi karnaa inaan raacno oo sheeganaa ay tahay kitaabka wixii sheegaya in dhaqankiisa waa laga tegay dhibka layskuma fiirsanaynin gaajada laysagama tegaynin dagaalka waa laisla geli jiray hibil baa la xureynaya galbeed baa la xureynaya meeqaa nagaga dhimatay 2 million almost Soomaaliya from waqooyi to koonfur bari to north wixii dhan waa isugu tegeen bariga ilaa galbeedka qofkii diida xataa qasaba lagu wadaayay dhulkaaga soo maahan aa leeyahay imise dhalinyaro la raafay oo dhimatay aanan soo noqonin xaafadaheena ilaa la sheegsheega ayaan kusoo koray yes it's a lot that was Somalia subixii raadiyaale lasoo saara ammaan diriiri waayey naag walbaba askarigii ugu soo horeeyay kaalmeynaysa wiil daraad ka hadlaya puntland lahaa gabdhihiina ha kacano sawaa'id ha usoo dugaana moraalka ha u dhisaano askarta he was right because nidaamkaas waaye nidaamkii Soomaali ahaan jirtay askarta bannaan ma looga tegay walaalay ahaayeen hor socodkay ahaayeen laakiin Soomaalida maanta jirto isna Soomaali oo greed ah oo weli si xun baqiilo noqoto mi xildhibaanka aniga leh madaxweynaha aniga leh barnaamijka aniga leh kulli aniga leh wasiirka me first agaasime anay ii xiran tahay zoonkaas kuwaas inaga dhaafka wax soconaya nonsense laakiin taan meel kuma gaareen cadowgeena waa badan yahay dhulkeena waa weyn badda xisaab ma gasho iska dhaafay wixii jiiraan nala kii qaaradda dabadeeda joogo America la dhahay xataa laba u hayso baddaan inta iskala eg say ku hesho Soomaaliya ha laga qaado xataa la isku day tamarba aan lahaanine waa qaqayline waa diidnay 2009 no badeena laakiin waxaan la yaabanay 2009 sida loo wada kacayn hadda badii Ethiopia iska qaadanaysa looga wada aamusay in Soomaalinimada dhinac looga wada yimaadeen la isaga aamusay in laba reer oo dhimanayso dab qaaday mid un la damiyo kan kala shib laga dhao that is not Islaamnimo that is not Soomaalinimo that is not walaalnimo dad dhiig isla leh maaha Soomaalida dialogue ay wax kala u maleeyaan iyo hadalka laakiin midba wuxuu ku dhashay meel ilmaha yaroo hadda Ingiriis ku dhashay iyo kan walaashayda dhashay oo Holland joogo isku afmaa walaas afraxweynaynan garanaynin walaa kaasna Dutch ku hadlaa kana English ku hadlaa diino markaan soo noqono reer Europe ay soo noqdaan inta luuqada Soomaali ku hadlayso anagoo dhulba horta aan iraahdo congratulations to Somalian intelligence aad u fiican Soomaaliya every other thing waa ku fiicana anaga laakiin mid un baa naga xumde managing ka naga halaysan bise intelligence-ga Soomaaliya waxa lagu qiyaasay wadan adduunka ma jiro caalamkoo dhan ma jiro wadan 7 luuqadood looga hadlo dawladda siyaad baro joogto weli in Soomaali lagu hadlo Raashiga lagu hadlo oo 4 luuqadood Yuruba Sawaaxiliga oo Afrikaan aan la qaybsano Carabiga oo Carab aan la qaybsano iyo Soomaaliga noo dheer because Faransa lagu hadlaayay Talyaani lagu hadlaayay
ingiriisa lagu hadlaayay ruusha lagu hadlaayay soomaalida waxaa kaloo lagu noo dheeraa afrikaana noo dheeraaye waxaa noo dheeraa carabiga legislation intaa ethoobiyaanka even though annaga ku dhex jirnay oo la dagaalamayno dhul naga haysteen we didn't like it to claim the language inaan sheegno ma rabin af ethoobian naqaanaa inaan dhahno laakiin way fiicneed promotionka wuu badan lahaa levelka oo intelligencegeena banaan kusoo bixi lahayd waddan kastoo soomaaliya ku yaalo haddaan lagaga hadlayn 3 luuqada looga hadlaayo ilmaha ingiriis barteen odagoo talyaani ku hadlaayo hooyo soomaali ku hadlayso like gurigeena oo kale 4 luuqada looga hadlaayo laba waxay isla yaqaanaan english iyo carabi haddana kan kala carabi english talyaani kan kala talyaani english something like that triangle ahead meeqa qof aan ahaan 5 qof keliya يعني أبا مؤمن أبا حسين حور حاو هو أب لح خفاها إلا بإلهم بس 7 language 4 language 5 language marka taas aaday muhiim u tahay waxay ahayd waxyaalaha noocaas in promotion lagu sameeyo waxaa la rabay in oo soomaalinimada ay soo noqoto in la iska naxo in la isu gurmado ayaantii waxaan ogaa abaarta xun martay Soomaaliya oo migrationka weyn dhacay naag aan hilmaami karin baa jirto hadday dhimatayna ilaahay jannadii firdowsa ha geeyo hadday nooshahayna ilaahay cimri dheer oo caafimaad ha siiyo aan islaantaas ma aqaano raadiyaha baan ka dhageystay TV-ga Soomaaligan ka dhageystay maama Caasha la dhahayay naagta waxay ka soo hadlaysay maamadaas Birmingham area UK joogtay siday Soomaalidu u canaanataan jeclaan siday Soomaalidu u canaanatay ayaan jeclaan intay soo gashay tiri waryaadaha reer hibil ma dadka idinka dhasheen ka fadhiya ka kaca hal caawina was nice. That was the Somalia I knew. She was one of the one I knew. Hooyooyinkaan garanayay aadaan ugu xumay caaw wax ma qaban kari dadkii wax xataa soo galaya messengerka mala waa lay dhegeysanooyaa leh haddii la soo geli lahaa xataa la hadli lahaa something ay ahaan laheyd ma la hadlooyo something is not right. I don't know. koonfur galbeed waxaa loo diiday dadka gadaal kasoo galo reer koonfur galbeed oo magacyadoodana halkan ooga jeeda kulligiin waa salaaman tihiin koonfur galbeed waxaa la yidhi ma hadli kartiin xisbi ma dooran kartiin xisbiyada jiraana ma ayidsanin especially hadda ataag wuxuu saarayay xisbigii abni cadaalo waxaa la yidhi xisbigaasi kama qayb gali karo doorasho lagama hadli karo lagamana sheekaysan karo hadda markaan dhalinyarada aan lahayn xisbiyada ha laga hadlo ha la gaarsiiyo koonfur galbeed waxay soo rogtay xukun ah inaanan xisbiga laga hadli karin taas waxay caddaynaysaa war an ayaamahan dhan aan lahayn Ethiopiana dhulka basbaas abuuranooyo aan lahayn in Ethiopia koonfur galbeed ay haysato nin wariyo ah oo maasha Allah reer banaadir meelaha u dhashay oo tagay koonfur galbeed report soo bixiyay shalayto oo leeyahay koonfur galbeed waa la haystaa askarta Addis Ababana kuwii Amazon maaha askarta timaadana kuwii Amazon maaha askar Addis Ababa ka timaado ilaa Baydhabo iska soo lugeynayso iyadoo maajin sameynayso soo gaardinayso iska imaanaysaa jirto so they are not part of Amazon marka maadaama vote-ka naloo diiday xisbigina ka hadalna naloo diiday aan war dhan aanan tabin karin wariyaasha amar lagu sii inaysan shaqeyn karin Ethiopiaankan iska soo gaardina iska soo galaya airportkana la haysto iyo magaalada taas maxay kuu sheegay koonfur galbeed Ethiopia ka tirsan tahay ninka Soomaaliya Soomaaliya inuu doorasho sugayo ma jirto doorasho vote-kiina automatically hal qof dhiba idinkan Ethiopiana tiin
caawa programka waa kaas anoo 2 beri iyo 3 beri habeen iga damayay bahalkaano virus la igu soo tuuraan idin lahaa habeenkaas ilaa hadda waa la xarbinooyaa uu shaqeyn la ahay abkeyga maybe waxaan u gudbayaa another file or another program because ma qaban kari qofba and the reason why I don't know aad umahadsantihiin maxamed cali kalaayo tribute loo sameynaa maxamed cali kalaayo kii Amerikaanka ma ahan ka iyagi professorka iyagi wasiirka iyagi oo dhintay in caruurtiisa aan la hilmaamin wasaaradda waxbarashadan codsi ka leenahay inaysan ka joojinin familkaasi mashaharka because abakalaay caruurtii Soomaaliyeed caruurtii koonfur galbeed muusan hilmaamin maaha in kuwiisa la hilmaamo tan kale waxa waaye Ethiopia inay haysato koonfur galbeed annagana aan leenahay dhulkeena hana free hana looga dhigo voodka xisbi waayaa la yiri xisbigu waa naloo diiday marka yaan u voodaynaa yaanana ka voodaynaa miska aamusnaanaa sheekada waa iska soo weynaanaysa hataa vood ma galaysiin wax la dhahaa hataa waa iska yimaadeen marka bahasha xaaraana yani ka socoto meesha it's not right laakiin afmale u baaburunto ukun ahaan guban talow ma u malayne inay meel dad gaarsiinayso for a long time maxay achievement ay keenay taas maxay sameynay hadda magaalada Muqdisho oo kala dad dhahay mudaaharadan sameynayna peaceful okay sameesta magaalada ma orordaysin oo qoraxda maaj gareeya intaas askara loogu soo shuba meesha why peaceful aba la yiri qoray ma la qaadanayo askarta geesaha istaagan intii qor wata dhig waa la dhigi karaa laakiin everything possible hala jooji mudaaharaadkaas la dhahay everything possible waxa waaye ku soo baxo hatta xabada lagu furo that's not on wax sax ma kaas go by don't similar like father like son like father like son it's okay mar baa sidana sila dhihi doona maanta kuleba situation ka wuxuu igu noqday caawa inaan wax badan ila hadashaan rabay wallahi billahi bahalkan uu ilad midaan waxaan ku leeyahay bahasha markay noocaan noqoto caawa ma xanaaqsanin waa qoslayaa because mana qoslooyi waana qoslayaa waxay iga noqotay oohina qosol isku dartay oo kala kaan I'm used sheekada markii aad dhinacaad ka geysaba dhinaca kale ee cakiran tahay meelaad u dhaqaaqda aadan garanaynin confused.com aad tahay I don't know shock aan la aamusana ما هن معارضتين مركا معارضة ماذا حاجة لك حسبي ما هاد لي كرولوي سالو دورنا هذا 40% اوتوماتيك لها القفة جينا مية مركا فوت كين يا قاضي وحربناها حتى ما دي كرنو حالة هذه وعكرنتها والله بالله يكون فوق البيت waxaana waa la arkayaa waana la maqlayaa maanta qori dabadiisa day ku socodsiisay ilaa how long ay ku soconaysaa we need Ethiopian free from our country from our land from our airport we need to be free Ethiopians there they can't tell us in 1 minute to have a member of party and then next minute they can't tell us that we cannot talk about the party or we cannot do any voting except the voting that the president says what no choice at all
How can they reject a party? It's registered. So things are going too far. No reporter can speak in Koonfur Galbeed. Our airport and our city is hooked for Ethiopians. Ethiopians are marching from Baydhaba to Addis Ababa non-stop, not with a car, they walk. Hi. Yes. Yes. How? Okay, and we are going separately tomorrow night. Because you always carry a load and I hate that. You always carry a load. Go away. Bye. Okay, tomorrow night masoo galay ani programka aan idin bishaarey tomorrow night waxa way my sister-in-law ba aroosiisa ilaahay arooska aroos qeyr qaba looga dhigo meel gobol aan u soconaa outside London korena morning kala soo noqonayna Sunday-da u maleena annaga UK waxa ku xunaa habeenkii la dhigtaa arooska raadadan maalintii marka travel kaba I hate it safar kaba la xanuunsanahay free Koonfur Galbeed please and Ethiopian kan waa in sina laga dhahaa hadee arrinta intay soo socotay baa la leeyahay yani wariyaashina ma hadli karaan oo xisbina ma hadli karo isma sharxi karo de xaaladda qaraar waa dhaaftay marka dhanaan qaraar ku jiro marka that is not right taas wax laga ajiif gareynayo malaha meeshan inuu dagaal ka dhaco wax laga ajiif gareynayo malaha wax oo yani oo soo kordhinaysa malaha in dagaal uu ka dhaco Soomaaliya ma soo kordhinayso waxna itchinka iyo xagashada iyo qudquteenta dadka in la iskaga dhaafo waa fiicnaan lahayd kii mudaharaad qaaday keligiis maanta dhan qoraxda dhaysa baraf markuu baado gurigiisa iska noqonayo wadooyinkan ba safetada la ilaalin lahaa in dadka la cubriyo ma hadli kartiin la dhaho ma foodi kartiin la dhaho xisbigiin ma registraysan kartiin la dhaho Ethiopiaanka magaalada ay iska haystaan ummadda markaan soo warinayso Ethiopiaankii ka tagay madaxtooye Baydhaba ilaa Addis Ababa waa lugeynaa la leeyahay things are not right. reer Koonfur Galbeedo dhulaan leenahay ma jirto I think haddaan leenahay naga Ethiopian ka tirsanahay not Soomaali xisbigu waa naloo diiday wadankan Ethiopian haysto marka idinka 2+2 = 4 aad u mahadsantihiin caawa idin salaamayaa wax qofba ma soo qaban kari bahalkan waxa inaan virus mar labaad ku celiyo dan waan ku soo noqonaa programka aad baa u mahadsantihiin at least intaan oo dada fiirsanaysa caaw isku yara xishooda bahalka sheer gareeya hal qof sheer dhahay kuma jirto qof walba markuu isaga hadlo sheer dhahaa mar kale ma dhahayo maxay tahay macnaa wala hawla wala quwwata illa billah waa idin duceena Somali United say ku noqotan way adagtahay laakiin Ilaahay baa laga tuugay Somali United Somali danooda inay gartaan Ilaahay baa laga tuugaya hal qofna yani Soomaaliyiin aan jajabinin danooda gartaan Ilaahay laga tuugay Soomaali xoolahooda la gadgadanaayeen inay Soomaali u noqdaan oo dadku yani caruurtooda iyo mustaqbalkii aan laga fakaro Ilaahay Soomaaliya la ka dhigo thank you so bari